يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة خلي اللوام يلوموا مهما لاموا خلي اللوام يلوموا مهما لاموا عودوا يا ناس للإسلام وياه خلي اللوام يلوموا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhowaada mu'tamarkii sideedaad ee idin soo qabanqaabiyeen markiska tawfiiq islamic center maanta oo ah maalintii koowaad muxaadaradanina waa tii shanaad magaceeduna waxaa weeyaan calaamaatu saaca calaamadaha waqtiga qiyaame waxaana inoo soo jeedinayaa sheekheena sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuuran maajuura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع محاضرة وسيدي لهوري الله شيء أشراط الساعة انت أنا قد قلن waxaan jeclahay inaan ka hormariyo nin ka mida mashaayiikhdii iyo culimadii dacwadan u soo khidmaysay ee wax badan runtii ka soo qabatay oo haddana xanuunsan inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala u barino inuu caafiyo. waa sheekh yuusuf cali dhuux weeye. culimadii dacwadii Soomaaliya si fiican uga soo qayb qaatay buu ahaa. haddana South Africa uu ku xanuunsan yahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu caafimaad degdeg siiyo asaga iyo muslimiinta kale ee xanuunsanba. taa haddaan intaa kaga gudbo mawduuca ashraatu saaca macnaheeduna uu yahay calaamadaha saacadda lagu garto. saacaddu macnaheedu waxa weeye waa qiyaamada iyo adduunkan aan hadda joogno dhammaanshihiisa inuu dhammaanayo wabitaali inay nolol kale ka dambayso. nolosha dambe ee loo yaqaano nolosha aakhiro iyo noloshan hadda aan joogno oo ah nolosha adduunyada
ayaa waxaa u dhaxeeya oo kala saaraya saacadda qiyaamada. saacadda qiyaamada wixii ka horreeyana waa noloshii adduunyada, wixii ka dambeeyana waa nolol aakharo. saacadda qiyaamada saan u tegi doonno amaan ka hadli doonno wax wakhtigeeda la yaqaano ma ah, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa khaas la ah. laakiin calaamadaa jira lagu garan karo inay soo dhowaatay, adduunkiina uu gabagaba yahay, aakharo iyo noloshii dambana inay soo dhowdahay. taa iyada ah calaamado badan oo qur'aanka iyo sunnadu ay tilmaameen oo ku tusayaa jira. waana tan hadda ujeeddada laga leeyahay muxaadarada ashraatu saaca. waa qayb ka mid ah aliimaanu biاllaahi waاlyowmi alaakhir, allah iyo maalinta aakharoo la rumeeyo. qayb ka mid ah waxa weeye in la rumeeyo wax kasta oo qur'aanka ku yimid ama axaadiista nebiga sugan ku yimid sal alla alay wasalam oo ku soo arooray, oo waxyaalaha imaan doona ah, waxyaalaha dib ka imaan doonee soo socda ka mid ah. faa'iidada laga helayo waxaa ka mid ah oo laga faa'iidaysanayo ruuxu markuu ogaado qiyaamadii iyo saacadda iyo calaamooyinkeedii inay waxna yimaadeen, waxna la sugayo, waxna aan hadda dhex joogno, waxna tageen. markuu ruuxu ogaado waxay u kordhinaysaa ziyaadatu liimaan, iimaankiisaa siyaadaya. maxaa yeelay waxyaalihii uu nebigu sheegay sal alla alay wasalam oo dib ka dhacay oo siduu u sheegay u dhacay, horayna muqayabaad qarsoon ahaa, ruuxu markuu arko iimaankiisii uu aakhiro rumaysnaa, rasuulka rumaysnaa, qur'aanka rumaysnaa, xaqa rumaysnaa baa siyaadaya. wax laguu sii sheegay ood haddana aragtay wey. waxaa kaleetoo ka dhalanaya ruuxu markuu ogaado adduunyadii inay horay u badatay, waxa laabanna uu wax yar yahay, gebagabadeediina calaamadaheedii in badanay yimaadeen, in badanna soo dhow yihiin. waxaa ruuxa gelaya isdiyaariyoo diyaargarow, oo waxaad isu diyaarisaa xaaladdan cusub iyo noloshan cusub. tii aad sii joogtay adduunya waaba gebagabo iyadu, ee tan soo socota isu diyaarina ruuxa waa ka faa'iidaysanayaa. oo kullamaa ruuxu aakhara iyo cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo rumaysnaanteeda kullamaa ruuxu uu ku dadaalo, kullamaa ruuxu xaalkiisu isbeddelo, oo noloshiisu isbeddesho, oo cibaadadiisu isbeddesho, oo dhaqankiisa o dhan isbeddelo. saas daraaddeed baa qur'aanka kariimkaa ma maraysid safxo ka mida qur'aanka ilaa maalinta aakhara laga warramaya. meel kasta waa mabda'u aad uu qur-aanku xoogga u saaray weeye, si aadan berri u qoomamoonin oo berri markii aad xaqaa'iqdii u tagto laguu sheegayay, si aadan berri aadan shallayto iyo qoomamo ayna kuugu dhicin. wixii waa soo socdaa, waana xaqiiqo la hubo wey. inaad marka qaabkaad u waajihi lahayd isdiyaariso, markaad ogaato inuu imaanayo, faa'iidooyinka aad ka helayso ayay ka mid tahay, oo aadan noqonin qolyuhuu rabbi sheegay tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaah wain kuntu la min asaakhiriin. dad baa maalinta aakhara markay tagaan oo xaqaa'iqdii loo sheegahayay ee looga warramayay markay tagaan oo isdul taagaan baa waxay leeyihiin shallaytadaydee waan qoomamoone, wixii aan khalday, waxaan halleeyey. markaasuu wuxuu leeyahay alla maa dib la ii celiyo, jaanistan baa maalaysiiyo, hadduu alla i waafajin lahaa. warkaas iyo calaacalkaasi intuusan kugu dhicin baa la doonayaa in intaad xaqiijiso in noloshani aad ka guurayso oy dhammaanayso asal ahaanteedaba, aad markaa isu diyaariso nolosha soo socota iyada ka dambaysa. saas daraaddeed
ayay culimmadu dadaal gooniya waxay ku bixiyeen inay ka hadlaan qiyaamada iyo saacadda iyo calaamooyinkeeda iyo waxyaabaha ka soo horreeya ee inay dhowdahay lagu garanayo kutub badan bay ka alifeen oo culimmadu sunnadu ay si gooniya uga alifeen baabka isaga taa intaa markaan kaga soo gudubno mabda asaasi ah oo inaynu rumayno laga maarmaan ayuu qur'aanka iyo sunnaduba taqriiriyeen mabda'aasi waxa weeye qiyaamada wakhtigay imaanayso ee adduunkani dhammaanayo ee nolosha dambe la bilaabayaaye taxdiid ahaan taariikhdeeda iyo wakhtigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala cidna uma sheegin waa waxyaalaha allah tabaaraka wa tacaala uu gooni la yahay oo cid yacni cilmigeeda loo furay aysan jirin laa malaa'igta walaa rususha walaa ambiyada cid ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala cilmigeeda iyo aqoonteeda ma jirto bal waxay ka mid tahay mima ista'hara allahu tabaaraka wa tacaala bicilmihi waxyaalaha ilaahay uu khaas la noqday aqoonteeda iyo cilmigeeda iyo garashadeeda oo uu gooni leeyahay bay rabbi ka mid tahay tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka ah ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yas'aluunaka can الsaacati ayaana mursaaha waxay ku weydiinayaan saacadda waa qiyaamadee goormuu imaanayaa wakhtigeedu waa goorma su-aashaasay ku weydiinayaan ee nebiga waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa cinda rabbii cilmigeeda iyo wakhtigay imaanayso iyo tafaasiisheedu ilaahay agtiisay taallaa laa yujadliiha liwaqtiha ilaa hu isaga unbaa cilmigeediiyo muujin mooye isaga unbaa garan mooye cid kaloo garanaysa ma jirto dadka sidaa ku dheh haqulat fi الsamaawaati wاlardi laa ta'tiikum ilaa bagta qiyaamadu markay dhacdo samaawaadkana waa ku culus tahay dhulkana waa ku culus tahay idinkana si kada ah oo ku talagal la'aan ah ayay idinku imaan mooye inta laydiinsii sheego taariikhdaasay imaanaysaa laydin dhihi maayo laakiin xilli aydaan ku talagashanay oo adduunyadu idiin camiran tahay oo magaalooyinkii iyo hawlihii iyo aad kala wadataan oo shaqaysanaysaan unbay si kada oo lama filaana idinku imaanaysaa laa ta'tiikum ilaa bagta yas'aluunaka kaannaka xafiyun canha nebi maxamedow qiyaamaday ku weydiinayaan ee saacadda sidii adigoo xogogaal u ahoo kale sidii adoo ka warhayoo kale sida adoo cilmigeedii lahoo kale ku weydiinayaan qul innamaa cilmuhaa cinda allah waxaad tidhaahdaa cilmigeedu ilaahay agtiisu yaallaa anigu ma aqaano allah baa haya tabaaraka wa tacaala walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka badankood ma ay oga laakiin saacadda iyo qiyaamada cilmigeedu allah baa gooni la'a tabaaraka wa tacaala cid uu daalacsiiyeyna ma jirto sanadka taariikhda wakhtiga adduunkani dhammaanayo ninna looma sheegin sidaas daraaddeed xadiidka imaam albukhaari iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi cumar nebiga sal alla alay wasalam waxaa u yimi malakuljibriil isagoo nebigu saxaabada la fadhiya sal alla alay wasalam oo ay meel wada fadhiyaan ayaa waxaa u yimi malakuljibriil oo nin iska soo dhigay ruux bini aadama iska soo dhigay markaasaa wuxuu weydiiyey nebiga sal alla alay wasalam su'aalo badan su-aalihii waxaa ka mid ahaa akhbirnii can ilislaam islaamnimada iiga warran nebigu waa ka jawaabay sal alla alay wasalam haddana wuxuu yidhi akhbirnii can iliimaan iimaanka iiga warran iimaan maxaa la dhahaa wuu ka jawaabay akhbirnii can ilixsaan waa ka jawaabay markaasuu wuxuu yidhi akhbirnii can isaaca qiyaamada bal iiga warran buu yidhi moxamedow qiyaamo goortay imaanaysa iyo wakhtigeeda wax iiga sheeg markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ma almas'uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinayo aniga nebi maxameda sal alla alay wasalam ugama aqoon badni ka i weydiinayo adiga jibriil ah macnaha adiga jibriiloo i weydiinaya iyo anigoo nebi maxamedood i weydiinayso aqoonteedu isku meel bay inoo joogtaa wey kaagama xogogaalsani wey adiguna jibriilow garan maysid aniguna garan maayo jawaabtii nebigu sal alla alay waslam markay sidaa noqotay ayuu markaa kadib wuxuu yidhi haddaadan garanaynin anna aanan garanaynin iiga warran marka calaamaadkeeda iiga warran wakhtigeedii la garan waa malakul jibriilna garan waa nebi maxamedna garan waa salawaatu rabbi wasalaamu calayh cid kaloo marka garan kartaay ma jirto cid kaloo garan kartaay
ma ay jirto waxyaalaha rabbi tabaaraka wa tacaala uu qarsaday ee adoomadiisa ka qarsaday bay ka mid tahay waqtiga ay qiyaamada iyo saacadu iimaanayso saas daraadeed ayaa waxa isku dayaan culimada qaarkood inay bal wax ka tilmaamaan adduunyadan iyo cimrigeeda sida imaam suyuuti oo kale wuxuu isku dayay fi kitaabihi al-hawi lil-fatawa ayuu baxthi ku leeyahay baxthigaasi wuxuu kaga hadlayaa oo isku dayaya bal inuu tilmaamo adduunyadii in imisaa tagtay imisaase laaban akhiira wuxuu ku soo gabagabaynayaa oo uu leeyahay adduunku wuxuu ahaa sidiisaba 7,000 oo sano ahaa 6,000 oo sano horay u tagtay nabi maxamedna waxa la soo saaray buu leeyahay 1,000kii lixaad aakhirkiisa la soo saaray sidaas daraadeed adduunyadii nabi maxamed markii la soo saarayay waxaa ka laabnaa 1,500 muddo ka yar baa ka laabnayd suyuuti wuxuu dhintay qarnigii 10aad bilowgiisa asagu markaa uu dhimanayo wuxuu leeyahay adduunku 500 oo sano oo hadda ama sii jiri doono waa qiyaas iyo aasaar daciifa iyo waxbuu isku ururiyey 500 sano sanadkii hadda waxaan ku jirnaa qarnigii 15aad baan ku jirnaa hadda adduunyadiina waa dhisan tahay qiyaasta marka uu isku dayay imaam suyuuti iyo rag la mida waa qiyaas khilaafsan quraanka iyo sunnadiiba khilaafsan waay laana shay ilaahay cilmigiisa qarsaday ninkii isku daya inuu wuxuun ka ishaaro wax ka tilmaamo yaani meel cidla buu wax dhigi sidaas daraadeed sax ma aha ninkii wax ka sheegayna wax uu macnaha uu iska mala awaalu sheegay yaani cimriga adduunyadan meel la inoogu sheegay ma jirto ilaahay baana tabaaraka wa tacaala khaas la ah oo gooni la ah garashadeeda iyo aqoonteeda laakiin waxaan haynaa oo quraanku noo sheegay markii nabi maxamed la soo saaray sallallahu alayhi wasallam oo quraanku degayay inay adduunyadii gabagaba tahay oo waqtigeedu soo dhawaaday quraanka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala iqtaraba lin-naasi xisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun dadka waxa u dhawaaday xisaabtoodii ayaguna waxay ku sii jeedaan moogaan iyo halmaansanaan bay ku jiraan waxba kama warhayaan xisaabtoodiina waa dhawaatay rabbi tabaaraka wa tacaala اقتربت الساعة وانشق القمر ساعدي ودواتي ضيحينا واكل دلاعي ضيح كلا دلاعي سوحوها معجزة النبي قال السيئي باهيدو انتو مكة شوغي ايو ضيحو انتو كلا جبال لبا قيبود نقضي ايي قيبنا حق مرتي قيبنا حق مرتي مركا لكن اقتربت الساعة وقتي قيامة ودو يحي قرآن كيف دقيا inay dhawaatay marka waa la inoo sheegay inay dhawdahay waa la inoo sheegay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka sahl ibn sa'd as-sa'idi fi sahih al-bukhari ayuu wuxuu ku leeyahay bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn aniga iyo saacadii qiyaamada waa nala soo diray anagoo sidaas oo kala markaas wuxuu isku lamaaniyay nabigu sallallahu alayhi wasallam labadii safarood farta murugsatada aan dhahno iyo fardhaxada aniga qiyaamadii sidaas oo kale aan isku nahay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam bimaana inta labada farood isdheer yihiin intaas oo kale aan kala dambaynaa waay anigu intaas oo kale iyada ka horeeya ayaduna intaas oo kale iga dambaysa lafdiga ahmed iyo tabarani ay soo saareen bisanadin hasan ayaa wuxuu tilmaamayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam bu'ithtu ana was-sa'atu jami'an in kaadat la tasbiquni ibn nabi sallallahu alayhi wasallam anigi ya saacada waana la soo saaray oo waana la soo diray anagoo wada jirna waxayna sigtay ibn nabi sallallahu alayhi wasallam inay iga soo hormarto in kaadat la tasbiquni waanu wada socnaa waxayna sigtay qarka u taarantaa inay iga soo hormartaba bimaana wax weeye xilliga nabi maxamed la soo saaray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo 1400 sano hadda laga joogo ayaa wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qiyaamadii iyo saacadii iyo anigu waan wada soconnaa way dhowdahay way macnaheed waqti badani kama laabna hana ugu talagelina way macnaha qiyaamada marka sidaas weeyaan oo waqtigeedana lama yaqaano laakiin inay dhowdahay bay nusuustu tilmaantay saacadana saddex macna loo isticmaalaa as-saa'a
saddex macno loo isticmaalaa macnaha koobaad waxa weeye as-saacatu as-sughraa saacada yar ama qiyaamada yar waxa la yiraahdaa ruuxa dhimashadiisa laana ruux walba markuu dhinto faqad qaamat qiyaamatuhu saacadiisi iyo qiyaamadiisi way dhacday adiga caawa hadii lagu aaso qiyaamad dambood sugi ma jirto خلاص markaas hawlahaagu ku bilaaban xisaabtaadii ku bilaabatay abaalgudkaagii ku bilaabay hadduu xumaa iyo hadduu fiicnaaba marka qiyaamadaadii dhamaatay oo way ku dhacday adiga taasi waxa la yiraahdaa as-saacatu as-sughraa oo ruux walba iyo dhimashadiisa khaaska ah macna kalena waa loo isticmaalayo as-saacatu al-wusta midda dhaxdhaxaadka oo waxa la yiraahdaa dadka isku qarniga ah ama isku da'da ah markay dhamaadaan waxa la yiraahdaa saacadoodii baa dhamaatay waa isku saacad dadka hal mar wada dhasha isku da'aada ah dhimashadooda hal mar ay dhamaadaan ayadana waxa la yiraahdaa saacadoodii baa dhamaatay baa la yiraahdaa mesela 80 sano 70 sano 100 sano intii isku waqti abad israacida israacaan ayadana saaca al-wusta baa lagu tilmaamaa oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiisu Aisha waxay leedahay nabiga waxa uu iimaan jiray dadka reebaadiyaha أعرابته رباديها أو إيمان شري مركي النبي قوي مادان صلى الله عليه وسلم وحي ويدين شرين متى الساعة نبي الله ساعد وقرمة مركز وحي ويدين شري النبي صلى الله عليه وسلم انتو في ريو متكودا وقود دائر انتو في ريو أي وحي ويدين شري إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم النبي صلى الله عليه وسلم كان هدون نولاده وكمركا وقود دائر ضدك ميشة تشوغا kani hadduu noolaado meesha ay da iyo duqnimo ku haleesho qiyaamadiinii waa dhacday buuri saacadiinii waa dhacday bimacnaa ka idinku da'yar meeshuu ku duqoobo intiinii kalena waa tagteen waay wax idin laaban ma jiro taana waxa la yidhahdaa as-saacatu wusta baa la yidhaahdaa ta ugu dambaysana waxa la yidhahdaa as-saacatu al-kubraa oo waa midda qur'aanka iyo sunnadu ay ka hadlaanoo inta badan adduunkan iyo gabagabadiisa oo dhismaha adduunku baaba'ayo dhulkani baaba'ayo samadu baaba'ayso nooluhu baaba'ayo haddana dib loo soo nooleeyo lala xisaabtamayo noloshii aakhiro dambe la galayo taas inta badan quraanka iyo sunnadu ay saacada u isticmaalaan saacada qiyaamadu marka ama saacada calaamaadkeeda oo mawduuceenu hadda ku saabsan yahay mawduuca calaamaadka saacadu ku saabsan maadaama waqtigeedii aan la garanaynin laakiin calaamadaha jira ka soo hormaraya oo markii la arko lagu garanayo inay soo dhowdahay mawduuca hadda taas ku saabsan yahay qiyaamada calaamadaha ka soo horeeya in doonayna hadda inaan ka hadalno waa laba qaybood qaybidu waxa weeyaan waa calaamado waaweyn oo aad u waaweyn oo wax la arki jiray aan ahayn oo adduunka markay yimaadaan durba isbedel la dareemayo ayaguna u imaanaya si isdaba joog ah oo midi markay timaado sidii kuul furatay oo kale inta kalena ay si xiriir u daba joogaan kuwaasi waxa la yiraahdaa ashraatu as-saa'a al-kubra baa la yiraahdaa xaalada isbedel waaweyn oo adduunka ku imaanaya inta wali la joogo la degan yahay kuwaasi insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan ka dhigi doono xalqad dambe ama muxaadaro dambe oo tan ka dambaysa ayaan ku soo qaadan doonaa calaamadaha waaweyn iyo isbedelka adduunka ku dhacaya iyo siday u soo kala hormarayaan taa iyada waxaan ka dhigi doonaa muxaadaro dambe insha Allah ta'ala laakiin waxaan kaga hadlaynaa hadda fadhigan calaamadaha yaryarka ah ee adduunka ka dhici doona ee markay yimaadaana astaan iyo calaamad u ah inay qiyaamadii weyneyd soo dhowdahay kuwaasi marka waa farabadan yihiin caadatanna waxa la yiraahdaa waa wax bini aadamku arki jiray wax bini aadamku arki jiray bay u badan yihiin laakiin siyaadaya oo sidii lagu yaqaanay ka kordhaya way badan yihiin waa badanayaan waa la arki jiray intooda badan shay qariib oo la yaab leh ma aha laakiin sidii lagu yaqaanay bay ka siyaadayaan sidii lagu yaqaanay ayay ka siyaadayaan kuwaas marka waa farabadan yihiin calaamaadka yaryarka ah marka la fiiriyo iyaguna saddex qaybood bay u qaybsamaan qaybi waa calaamado intay yimaadeen nabigu ka sii warramay nabiga gadaashii yimid oo dhammaaday kuwana waa calaamado
soo baxay oo la arkay laakiin weli sii jiro oo sii siyaadaya kuwana waa calaamado aan weli imaanin oo la sugayo imaanshahooda saddexda qaybood baa loo qaybiyaa yacni waxa weeye calaamadaha qiyaamada calaamadahaasi marka aad bay u fara badan yihiin mana koobi karno hadda fadhigan iyo muxaadaradan kuma koobi karno laakiin inta waqtigu noo saamaxay ayaan ka soo qaadanaynaa insha allahu tacaala waxaa ka mida maalan oo calaamadda ugu horraysta lagu tilmaami karaa bicthatu nabiyi sal alla alay wasalam nebi maxamed soo saaridiisii soo diriddii la soo diray isagoo rasuul ah waxyigu u yimid malagku yacni waxa weye u keenay ilaahay hadalkiisa soo diriddii nebi maxamed calaamad iyo astaan qiyaamadu inay dhowdahay ku tusayay ahayd lianna maadaama ilaahay rusushuu soo dirayay isagu ugu dambeeyo macnaheedu waxay ku tusaysaa adduunka wax badan baa isbeddelayoo rasuulkii ugu dambeeyey hadduu kan yahay wixii isaga ka dambeeya adduunka waxaa loo diyaarinayaa marka in la gebagabeeyo sidaana macnaha ku tusaya ama macnaha xadiidka ku tusaya waa xadiid uu nebigu sal alla lay waslam calaamado fara badan uu ku sheegay oo maalan xadiidkii hadda aan soo sheegnay oo kaleeto anigiiyo saacadda waxaa nala soo diray annagoo sidaas oo kale ah waa kii aan soo marnay waxaa kaloo ka mid ah xadiidka cawf ibnu malikin oo nebigu uhi sal alla lay wasalam ucdud sittan bayna yaday saaca qiyaamada ka hor 6 arrimood tirsa buu nebigu uhi sal alla lay wasalam 6 arrimood oo ka soo horreeya qiyaamada tiri markaasuu nebigu wuxuu ku bilaabay sal alla lay wasalam yacni soo saaridiisii kadibna wuxuu ka dambaysiiyey 6daa arrimood waxaa ku xiga mawtii dhimashadayda buu nebi uri sal alla lay wasalam soo saaridiisiina calaamad bay ahayd dhimashadiisuna calaamad bay ahayd hadduu dhintay bimacnaa waxa weeyaan allaha tabaaraka wa tacaala wakhtigii uu adduunkan khatimi lahaa iyo noloshii dambaa soo dhowey waxaa ka mid a maalan calaamooyinkaas oo isla xadiidkaa laftiisa ku timid furashada ay muslimiintu furan doonaan baytilmaqdis ayadana calaamooyinkaasuu nebigu ku daray sal lla lay waslam xadiidkan hadda sheegaynay xadiid sahl ibnu sacdin isaacidi xadiidka cawf ibnu malik baan dhihi lahaa ayaa macnaha uu nebigu ku sheegay sal alla lay waslam 6da arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya waxaa ka mida buu nebi uri sal lla lay wasalam fatxu bayt almaqdis ama bayt almuqadas bayt almaqdis furashadiisa bayt almaqdisna sida la ogsoon yahay waxay muslimiintu furteen sanadkii 16aad ee hijriga sanadkii 16aad ee hijriga ayay muslimiintu baytilmaqdis furteen cahdigii cumar ibnu khataab radi allahu tacaala canhu ardaah ayaa baytilmaqdis uu gacanta muslimiinta soo galay nebigu sal alla lay waslam wuu sii sheegay in lay furan doonaan oo qabsan doonaan oo gacantooda uu soo geli doono wuxuuna ku daray calaamadaha lagu garan doono qiyaamadu inay soo dhowdahay baytilmaqdis oo gacantiina soo gasha wakhtigaasaa la furtay wakhti dheer bay muslimiintu gacanta ku hayeen ilaa mar dhow muxuu ahay reer galbeedku ay yuhuudda ku wareejiyaan oo siiyaan waxaa ka mid ah calaamadaha iyaga ah oo nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas waa magaalo ku taalla filistiin waxaa ka dilaacay daacuun dad badan baabi'iyey nebiguna wuu sii sheegay sal alla lay waslam wuxuu ku sheegay 6da arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya tirsada uu yidhi waxaa ka mid ah muutaanun ya'khudu fiikum ka qucaasi alqanab buu nebi uri sal alla lay waslam geeri dhimasho aad u fara badan oo idin qaban doonta haddaad muslimiintiin tihiin oo idiin qaban doonta sida cudurka qucaaska la yidhahdoo kaleeto oo adhiga ku dhaca waa cudur xoolaha ku dhaca oo markuu xoolaha ku dhaco intay sanka duuf ka sii daayaan xooluhu ay u la'anayaan si aan caadi ahayn u baaba'ayaan sidaasoo kaleeto xanuun idinku dhici doono idin baabi'in doona kaasaa ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya wuxuu dhacay cudurkaasi daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas wuxuuna dhacay ficlan sanadkii 18aad taariikhda hijriga ah baytilmaqdis markii la furtay 2 sano kadib ayaa waxaa ka dilaacay magaalada cumwaas la yidhaahdo daacuun baabi'iyey dad aad u fara badan oo muslimiinta ka mid ahaa ilaa 15,000 oo saxaabada u badan baa ku dhintay baa la yidhaahdaa raggii xanuunkaasi u laayay waxaa ka mid ahaa abu cubaydata bnu aljaraax amiinu hadihi alumma
ragga waaweyn ee xanuunka u leeday muxuu ahaayey daacuunka u leeday buu ka mid ahaa intuusan dhicin buu nabigu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xanuunkaasi dhicidiisa iyo muslimiinta uu layn doono ee baabi'in doono astaamahaasuu nabigu ku daray isagana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamadu inay soo dhowtahay lagu garan doono xooluhu inay bataan sadaqadiina laga kaaftoomo wax qaataba la waayo dadki intay xoolihii ka bataan oo la wada dhergo in sadaqadiiba nin ka qaata ruuxii sadaqada bixinahayaba la waayo taana waxay ku sugan tahay xadiidu abi hurayra nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa taquumu asaacatu xataa yakura fiikum almaal fayafiida xataa yahuma raba almaali man yaqbaluhu minhu sadaqatahu yacni nebigu sal alla lay slam wuxuu yidhi qiyaamadu imaan mayso ilaa ay xooluhu dhexdiinna ku bataan oo ay sida biyahoo kale u burqadaan meel la kala dhigan la waayo ilaa ninkii wax baxsan lahaa ee sadaqada la bixi lahaa murugtiisa iyo walbahaarkiisa ugu weyn ay noqotaba war sadaqada yaa kaa qaata talow yaa sadaqada kaa qaadan doona maanta wuu soo baxayaa dahab buu wadaa markaasuu jidadka wareegahayaa war sadaqada iga qaatuu leeyahay ninkuu usoo taagaba wuxuu leeyahay laa araba lii fiihi dan kama lihi buu leeyahay mana rabo danna kama lihi culayskiisa ila dhaaf buu leeyahay meeshaad geyn lahayd gee waa la wada dhergay laba goor bay dhacaysaa mar way dhacdayoo waxay ahayd xilligii cumar ibn cabdilcasiis uu talada muslimiinta hayay oo muslimiinta intay futuuxaad fara badan ay heleen xoolihii laga dhergay ilaa zakadii iyo sadaqadiiba cid qaadatiya meel la siiyaba la waayeyba la wada dhergay nin walba meeshiisa ku dhergay way soo martay muslimiinta ilaa cumar ibn cabdilcasiis alkhaliifatu araashid uu amray haddii xoolihii iyo sadakadii meel lagu bixiyo la waayey meelo kaleeto iyo masaalix kaleeto iyo meelo kale ha loo sarfiyo ha loo iilo ha lagu bixiyo marka way dhacday mar labaad bay dhici doontaa waa xilliga aan u tegi doonno calaamaadka waaweyn markaan ka warramayno waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo mahdiga imaanshihiisa mahdiga soo bixiddiisa xilliga uu mahdigu soo baxo oo muslimiinta uu taladooda qabto oo muslimiinta isku hagaajiyo ayadana xoolihiibaa intay bataan baa meel la kala geeya la waayi doonaa markaasaa ninkii sadaqada bixinahayay murug iyo walbahaar war yaa sadaqada kaa qaadan doona ayaa iyadana imaan doonta insha allahu tacaala taasina waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay markii la arko siduu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamadahaas duhuurulfitan inay soo baxaan fitnooyin fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii laysku diro ayadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeeda iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyadii dhammaanayso qiyaamadii soo dhowdahay axaadiis aad u fara badan buu macnaha nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam ina bayna yaday saacati fitanan ka qiطci leyli lmudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xogaa iftiin baa ku jira qaybta ka dambaysaa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysaa ka sii daran qaybtay ka dambaysay ka sii daranta fitan midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay ood isleedahay middani markay timaaddo wallaahi tanka wax ka daran ma leh haddana ta ka dambaysa markay timaaddo wallaahi tanaaba ka daran tu kalea ka sii dambaysa mise tanaaba beentiri wixii hore oo dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horraysa buu nabi uri sal lla alay wasalam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam yusbixu alrajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isaga oo muslim ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah ama gabalkaa u dhacaya isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u baryayaa isagoo gaal ah yacni daqiiqad buu isbedelaya yacni waxa weye labada saacadood ee isku xiga midna diintii buu ka baxay midna wuu soo galay
fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirtay dadka diintooda haysata ayuu nabigu ka warramaya sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alqaa'idu fiha khayrun min alqaa'im fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya ee istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya يعني كلما أتسيد دحجشوا أيضنا ويكسيد دحجلي شنطة مركز الله جشوا طبعا كي يكون جلي مركز إسكا أوروريسو ويكا أورور سمي نبروح بروح وكجحل دير يهينا أيضنا ويكجحل ديرت معناها سنة النبي قلت الماما يا صلوات ربي والسلام عليه مركز أوحي النبي صلى الله عليه وسلم حالنا مركز اعتمادوا في تنكو إيمادان أو مسلمين تلا يسكدروا قبيل بيسول لينيان كوح بيسول لينيان deegaan bay suulaynayaan ayagii baa dhiigoodii xalaashaday isku ibtilaysan xaaladaasi markay timaado nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fakasiru qisiyakum qaansooyinkiina jajabiya qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayay waqati'u awtarakum xariga qaansada la yiraahdo watarka xarigii qaansadana jara oo gooye qaansadiina jabiya wadribu bisuyufikum alhijara seeftii aad ku dagaalamayseen intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca si au afbeesho af aad wax ku dishaba sayna u yeelanin markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inta markaad samayso hadii lagu soo galo oo muslimkii aad dagaalamayseen balaayadu idinka dhex taagnayd oo ku soo galo adoo hubkaagii jajabiyay waxaad noqotaa aadam labadu dhalay isdilay koodii khayr ka badnaa noqob nabiga sallallahu alayhi wasallam هذا لبضو دليا إسدلي كوده خير كبدنا ما قاعد كل لها خير بدنا مش كل الدليل بقى خير بدنا كل الدليل بقى خير بدنا نبي مركب حوليه هاي كل الدليل ينقى لكن كواحد دليل يهنقنن معناه هذا فتن كاس مركب يمادان وحالة أذك أو كتصية أدون كان إنه فسادي فعلا نبي جيريدي سوقت بدن كمس وريجن مركب فتن كمسلمين تكون باللودين أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة الجبل بيسكجهري موقعة الجمل بيسكجهري ما ديره امتحان لحظة ذكرنا يا فتنة موقعة السفين أي هذا يسكجهري ما ديره امتحان يا فتنة لحظة ذكرنا عن النبي قال وحكى صلوات ربي والسلام عليه ومضى إذا لحظة هذا السيف تمر هذا كوب بلابته لين تيسلين يعني أي بلابته إلى قيامته أنت يكرر ما نسوا سيفتا نحديدا لغا قادي باي النبي صلى الله عليه وسلم الى انت قيامته كايمانيس سيفتا سوي سعون سيفتا macna waxa laga hadlayaa hubkii waaga lagu dagaalami jiray bay hayde noocyada hubka oo dhan ba macnaha laga wadaa marba haday iridu furanto oo fitanku furmaan wax afjari kara ma jiro way soconayaano maaliba meel un bay galahayaan oo ummad baa isbaabiinayso oo islaynayso oo fitankaasi marka ka dambaysana way si siyaadayaan saan u tagi doono ilaa heer la gaaro labada isdilaysa ayna garanaynin waxa isu dilayaan ka wax dilayana ma yaqaan wuxuu dilayo kala dilayna ma yaqaan sabab loo dilay ilaa heerkaas ay gaari doonto sana xadiis nabiga uu tagi doono sallallahu alayhi wasallam arimahaasi waxa iyaduna kamid tahay astaamaha ku tusaya qiyaamada inay soo dhowdahay waxa kamid ah calaamadaha ku tusaya qiyaamada soo dhawaanshaheeda dhuhurul khawarij nimanka khawaarijta la yiraahdo soo bixidooda inay soo baxaan khawaarijta soo bixidooda nabiga ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo wuxuu yiri aakhiru zamaanka waxa soo bixi doona niman dhalinyaro ahdathul asnan da'doodu yar tahay sufahaa'ul ahlam garashadood iyo aqligooduna fudud yahay oo wax garad ahayn waxba miisaami karin oo wax badan kala garanayn yaquluna min khayri qawli al-bari قرآن كيف آخرنا إيمان كودنا كالحمها وما دافعي دين توحي وقرنح بحيان سيدا ليبكا أما حبض ماشي لقوق قال السي وقرنح بحضوك له ساسوك له دين توقرنح سيبنا يان ماشي تكو أركتان باللايا لين تودا أشير با كوشير تعدي الله يسمالين تقيام ذا بخاري مسلم بحديث كصوص صاري معنيه سورة وحوي خوارجتي بو كهليا وين الصبح دوران بو النبي صلى الله عليه وسلم صبحي دودنا waxay ku tusaysaa inay qiyaamadi soo dhawaatay
waxay soo baxeen waqtigii nebigaba waa jireen khawaarijta fikirkooda asalkooda raggii fikirku ka yimid waqtiga nebiga way noolaayeen laakiin inay noqdaan urur soo baxay oo ciidan leh oo awood leh oo meel degan oo wax laynaya waqtigii nebiga ma ahayn waqtigii nebiga wax yar kadib ay soo baxeen dagaalkii markuu dhacay jamal oo saxaabada dhex maray qayb bay ku lahaayeen dagaalkii ka dambeeyay sifiin ayagaa sabab u ahaa oo intiisa badan lahaa dagaalkii markuu saxaabada dhex maray ayaa waxaa lagu heshiiyey hal heshiiyo reer shaam iyo reer cali ibn abi taalib oo macnaha dhinac watay mucaawiya iyo waa laysu yimid waxay yidhi war waxaan dhiiggan aan dhammayno aan heshiino heshiiskii markii la soo bandhigay oo in laysu tanaasulo la heshiiyo la soo bandhigay ayaa waxaa la saaray niman xakam ah oo labada dhinac ka kala socda oo la yidhi arrinta soo dhaweeyo soo dhiraan dhiriya nimankii markay xukunkii soo saareen oo muslimiintii inay heshiiyaan ay noqotay khawaarij baa ka dhex booday khawaarij waxay yidhahdeen caliyow rag baad ilaahay kitaabkiisii intaad ka tagtay baad rag caqligooda iyo maskaxdooda baad xukuntay kitaabkii ilaahayna meel baad ka martay haddaad rabto inaan ku raacno towbadkeen ka soo noqo kitaabka ilaahay u soo noqo haddii kale soo maaha beri baan kaan dhahay warukaadii waa niman jaahiliina oon aqoon lahayn oo muxuu ahaay war caliya waad khaldantahay ama towbadkeen ama haddii kaleeto waxbay suuma kan jiraan cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu o ardaahu wuxuu ku yidhi 3 arrimood intaydaan samaynin 3 arrimood intaydaan fasaad ku kicinoo dad laynin wax dhiba naga soo kiingaari maayo masaajiddanada idiin diidi mayno wixii gaalo laga qabsado faygiina qaybtiinaad ku leedihiin dhibna idiin geysan mayno laakiin maalinka aad fasaad ku kacdaan ood wax laysaan maalinkaasi kala badbaadi mayno waxay isku urursadeen meel la yidhaahdo xaruuraa ciidan weyn oo aad u fara badan bay samaysteen kadibna waxay ka shaqeeyeen inay laayaan raggii saxaabada ahaayee kooxaha kala watay cali bn abi aalib bay dileen cali intayna dilin buu la dagaalamay mucaawiyana way dhaawaceen nimankii marka halkaasay ka bilowdeen oo xilligaasay soo baxeen cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu o ardaa heshiiskaasuu la galay sidaasuu ku yidhi way kala tageen meel bay isku urursadeen meeshii ay degeen baa waxay bilaabeen ciddii soo martaba inay dilaan cabdullahi ibni khabaab ibni arata nin la yidhaahdo ayaa soo maray iyo xaaskiisii wada socda markaasaa waxay ku yidhaahdeen noo sheeg wax aad ka maqashay aabbaha iyo nebiga iyo noo sheeg bay dheheen markaasuu xadiid u sheegay maadaa ka maqlay anaa ka maqlay haa intay soo qabteen bay isagii gowraceen xaaskiisiina intay soo qabteen oo caloosheedii dilaaciyeen bay ilmihii ka soo tuureen iyadiina way dileen cali bn abi aalib ergu u diro wuxuu ku yidhi ninkii aad disheen dhiiggiisii baan idinka fadhinaa ee dadkii dilee gacanku dhiiglayaashaha soo dhiiba markaasaa waxay yidhaahdeen kullunaa qad qatalahu dhammaantannaa wada dilay war dhammaantiin maydaan wada dilina raggii gacanku dhiiglayaashaa keena maya waan wada dilay bay dheheen cali bn abi aalib markaasuu go'aansaday inuu dagaal ku qaado dagaalka nahrawaan meesha la yihahda ka dhacay buu ku qaaday wuu baabi'iyey warkoodu waa dheeryahay laakiin xilligaasay soo baxeen khawaarijtu xilligii cali bn abi aalib aakhirkiisay soo baxeen kadibna nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh khawaarijtu inay soo bixidoodu muddo markii la joogaba inay soo bixiyaan oo soo noolaanayaan haddana la baabi'in haddana soo noolaanayaan haddana baabi'in ilaa marka ugu dambaysa dajaal uu ka soo baxo waa u tegi doonaa calaamaadka waaweyn buu ka mid yahay dajaal ilaa marka ugu dambaysa uu dajaal ka soo baxo khawaarijtu saasay afkaartoodu kolbaa u imaanaysaa koox ahaanna kolba ay u soo muuqanayaan buu nabigu tilmaamay sal lla alay wasalam soo bixiddaa khawaarijay ay soo baxday afkaartooda iyo jiritaankoodu soo baxay ka urur xoog leh oo ciidan leh markaa wuxuu ka mid yahay iyaduna astaamihii iyo calaamadihii nebigu sheegay sal lla alay wasalam oo tilmaamayay inay qiyaamadu soo dhada wayna dhacday ficlan waxaa ka mid a calaamadaha uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam
ummadda nebiga sal alla alay wasalam oo raacda ummadaha kale dhaqankooda afkaartooda akhlaaqdooda raaca ummadaha kale iyo mujtamacaadka kale ummaddiisoo iska dabagasha oo wixii kuwaa dhaqan u ahaa soo qaata oo wixii kuwaa diin u ahaa diin ka dhigta ha xumaado ha fiicnaado iska dabagalo un ummado kale iska daba dhigta calaamadahay ka mid tahay calaamadaha qiyaamadu inay dhacayso ku tusaya ay soo dhowaatay bay ka mid tahay xadiidu abi hurayra macnaha sheegaya oo nebigu yidhi sal alla alay wasalam laa taquumu asaaca xataa ta'khuda ummatii biakhdi alquruuni qablaha ummadaydu ilaa ummadihii hore ay ku dayato qiyaamadu imaan mayso shibran bishibrin wa diraacan bidiraac dhudhundhudhun waxaan dhihi lahaa taaka taako iyo dhundhundhudhun ilaa ummadaydu ummadaha kale ay u dabagasho markaasaa wuxu yidhi ya rasuula allah ummadaha kaleed sheegayso ma faris iyo ruum baa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam waman innaasu ilaa ulaa'ika ummadadaan kuwa ahayn baaba jiraba soo kuwa uun ma ah riwaayo kale waxay sheegaysaa abu saciid xadiidkiisa oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah alyahuuda waannasaara ummadaha aad sheegaysa ma yahuud iyo nasaara markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay slam faman yaa kale marka ama furus iyo ruum ha noqoto ama yahuud iyo nasaara ha noqoto ummaddiisu inay ummadaha kale iska daba gasho ayadana waxay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay dhici doonto ilaa nebigu wuxuu gaadhsiiyey sal alla alay wasalam xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh xataa hadday dhacdo inay godka bahasha la yidhahdo abeesalugalayda godkeeda inay galaan waad ka dabagelaysaan buu nebigu sal alla alay wasalam yacni abeesalugalayda godkeedu meel bini aadan geli kara ma aha waa meel qarmuun oo haddana cidhiidhi ah oo haddana mugdi ah xataa meeshaa hadday galaan qaar ka dabagalaad yeelan doontaan buu nebi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh bal ablaq min hada rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam haddii laga helo qaar ayaga ka mid ah oo hooyadood jidka kale barhkiisa ku qabsanaya qaar idinka mid oo raaca unbaa la heli oo hooyadii jidka barhsamaheeda ku qabsanaya yacni waxa weeyaan sida aad wax u moodaysaan ummadaha kale iyo waxay haystaan waana sidii nebigu u sheegay sal alla alay wasalam maanta mujtamaca muslimka ah kii nin ahaana reer galbeed dhaqankooda nimankooda iyo qaabkay u dhaqmaan yuu taqliidinahayaa oo raadinayaa ilbaxnimo iyo waaye aragnimo iyo reer magaalnimo iyo fiicnaan baa waxay la gashay ninka cad wuxuu samaynaya samee wailaa haddaadan samaynin nin jiraba ma tihid reer baadiyaa tahay nolosha waad ka dhacsan tahay wax jira ma tihid haweentii reer galbeedku waxay samaynaysay bay ku ibtilaysan tahay haddii isqurxi la yidhi haddii labisa la yidhi haddii wax kastoo maqaayiistii oo dhan waxay noqotay wixii uu reer galbeed lagu arkayo ninka cad iyo naagta cad soo tii nebigu sheegaya maa sal alla alay wasalam ilaa wixii wasakhdoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badani ay u qaateenba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ka sii warramay arrintaasi markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhowdaa maanta maalin ay ka daran tahayna muslimiinta ma soo marin fi taariikh maanta maalin ay ka daran tahay ma soo marin wayna ka sii dari doontaa raaciddaasi mujtamacaadkaasi reer galbeedka iyo gaalada iyo dhaqankooda la raadinayo la dabagelayo oo sidoodoo kale layska dhigayo nebigu wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay waxaa ka mid ah oo nebigu sheegay sal alla alay wasalam waxaa soo bixi doona buu yidhi niman fara badan oo gadaashayda nebinimo sheeganaya kuwaasi markay soo baxaanna qiyaamadii waa soo dhowdahay saacaddii waa dhowdahay wuxuu sheegay nebigu sal alla alay wasalam 30 nin wax ku dhow oo mid walba nebinimo sheeganaya ayaa gadaashay imaan doona imaanshahooduna waxay astaan u tahay inay qiyaamadii dhowdahay mid walba wuxuu leeyahay nebi baan ahay wa ana khaatamu nnabiyiina walaa nebiya bacdii buu nebi sal alla alay wasalam nebiye anaa u dambeeya nebi alla soo diro nebi iga dambeeyana ma jiro laakiin waa beenaalayaal way soo baxeen ficlan nebigu sal alla alay slam markuu ka warramayay gadaashii way soo baxeen intuu noolaa oo nebiguba dhimanin rag baa nebinimo sheegtay waxaa ka mid ah maalan ninkii la dhihi jiray musaylimatu alkadaab oo reer bani xaniifa
nebiga noloshiisii aakhirkeedii ayuu nebinimada sheegtay weliba nebiga intuu u yimid sal alla alay wasallam madiine ugu yimid iyuu gorgortan la galay kama fii saxiixi albukhaari oo uu ku yidhi maxamedow aniguna nebi baan ahay adiguna nebi baa tahay sidaas daraaddeed haddaad rabto inaan ku rumeeyo adiguna i rumee adigu i rumee anna waa ku rumayna midda kale madaxnimada hadda adiguna hoggaami laakiin markaad dhimato ii dardaaran inaan anigu hawsh kaaga dambayn doono waa ku raacayaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam warniyow tabartaada dhaafi maysid beenaalaadna tahay buu ku yidhi waxba ma haysid musaylimatulkadaab meeshii buu ka noqday waxaa la dilay xilligii abubakr asidiiq gaaladii ridowday ee lala dagaalamay waxaa ka mid ahaa qabiilkiisa reer bani xaniifa macrakada caanka ee yamaamo loo yaqaano ayaa musaylimatulkadaab lagu dilay reer bani xaniifa nebi u ahay buu dhihi jiray nin noocaasoo soo baxayba xilligii nebiga sal alla alay wasalam ayuu soo baxay waxaa ka mid ah maalan alaswad alcanasi ninka la yidhahdo yaman buu isaguna ka daahiray saxaabadaa dishay intuusan nebigu dhimanin wax yar ka hor baa la soo dilay isagana waxaa ka mid ah haweenay la dhihi jiray sajaax xataa naag dumar baa xataa nebinimo sheegtay ayaduna xilligaasay nebinimo sheegto nebi baan ahay bayt waxaa guursaday ninkii la dhihi jiray musaylimatulkadaab baa guursaday way xaas u ahayd markii la dilay musaylima ayay towbad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay waa sajaax waay waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray tulayxata bnu khuwaylidin alasadi oo isaguna nebinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo towbad keenoo islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay kulligood wakhtigaa horay ahaayeen taariikhdaa dheer marka xilli walba nin baa soo bixi jiroo nebi baan dhihi jiray ilaa ay haddana way socotaa ilaa ay hadda adduunka meelo badan baad ka maqlaysaa nin intuu maalmo waxoogaa isyaro shuumay oo maro isa saaray oo meel isku yara qariyey oo waxoogaa dad yeeshay nebi baan ahay la soo booday tifwa waxaa ugu dambeeyey taqriiban uguna caansan ninkan hindiga ah ee la yidhaahdo yani waxa muxuu ahaaye mirza axmed ghulaam alqaadiyaani oo dariiqadan qaadiyaaniyada aasaasay oo asalkiisu hindiga ah ayaa ugu dambeeyey oo maraakiis fara badan iyo atbaac fara badan iyo santaruu ku leeyahay caalamka reer galbeedka khaasatan ingiriiskaana taageeray oo ingiriisku xilliguu gumaysanahayay muxuu ahaaye hindiya iyo bakistan iyo xilligaasuu soo baxay dariiqada qaadiyaaniyada la yidhahda ama axmediyada la yidhahda ninkii aasaasay wey nebi baan ahay buu yidhi nebi baan ahay nebi maxamed ka dambeeyey kuwaasuu ku jiraa kadaab beenaala abuu ahaa daa'ifadiisi iyo kooxdiisi iyo atbaacdiisuna waa gaalo aan islaam ahayn meelahay masaajidda ku sheegaanna masaajid maahe waa macaabid masjid ma aha axkaam muslim ma qaataan bilitifaaq hadal kuma jiro marka kuwaa faraha badan ee nebinimada sheeganaya iska daba imaanaya waxay ka mid tahay calaamaadka kutusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay kuwaasuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wayna fara badan yihiin inta aan sheegnay iyo kuwo kala ayaa ku jira waxaa ka mid ah calaamooyinkaasi meesha la yidhahda xijaaz ayaa waxaa ka kici doona dab oo nebigu sheegay sal alla alay waslam dabka meeshaa kacay shaam geela daaqaya luquntiisa ayay iftiimin doontaa buu nebigu sal alla alay waslam xadiidka macnaha sheegaya bukhaari muslim baa soo saaray abu hurayra dab wuxuu dhacay sanadka hijriga marka 654 taariikhda hijriga ayaa magaalada madiina waxaa ka kacay burkaan aad u weynay iftiinkeedu uu gaadhay culimadii markaa joogtay qoray raggii wax dambeeyayba wax ka qoray taariikhda muxuu ahaaye xilligaasi markay ku aadanayd magaalada madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yaro durugsan meeshaasaa waxaa ka kacday vulkaana ka kacday ama burkaan baa ka kacday burkaantii meeshaa ka kacday baa waxay keentay ilaa shaam xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddu dabkaasu shidnaa nebigu waa ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xijaaz waxaa ka kici doona dab iftiimin doona geela daaqaya shaam busra oo shaam ka mid ah geela daaqaya luquntiisa iftiimin doonta buu nabi sallallahu alayhi wasallam way dhacday sidii nabigu u sheegay u dhacday sallallahu alayhi wasallam qiyaamadu inay soo dhowdahay bayna astaan u tahay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamooyinka iyo astaamaha waxaa ka mid ah ammaanada oo la dayaco
ammaanadu maxay tahay mas'uuliyadda xilka wixii lagugu ammaanaysto sirta lagu dhiibto xoolaha lagugu ammaanaysto ammaanadiioo la dayaco oo dadkiiba laga waayaba ruux ammaanada qaban karo aamiinaba laga waayaba calaamooyinkay ka mid tahay xadiid abi hurayra ku tusaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idaa dayicat al-amaana fantadir as-saa'a ammaanada markii la dayaco saacada sug qiyaamadii baa qarka soo saaranay sug buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxa uu ya rasuulallah kayfa idaa'atuha ammaanada dayicideedu sidee weey markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam idaa usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadir as-saa'a haddii arrinka iyo xilka iyo jagada iyo kursiga muslimiinta loo dhiibo cid aan mudnayn cid aan dadkeedii ahayn qiyaamada sug ammaanada la dayacay waa taa qiyaamadii markaas sug buu nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaa way xilka muslimiinta yaa haya maanta yaase u hanqaltaagaya yaase raadinaya waxa hayay sidaan u tagi doono waa nin xun waa nin xun oo ammaanadii lagu aamini karin way ammaanada la dayacay ka u dhiibahaye u dooranahaye siinayana waa dayacay isaguna ninkii mudnaaba ma aha xilligaas qiyaamadii waa dhowdahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam kadibna nabigu wuxuu ka hadlay sallallahu alayhi wasallam xadiiska xudayfa sida ammaanadu dadka qulubtooda looga saarayo ilaa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dadkii waxay ahaanayaan kuwa heshiisyo galaya baayactamaya heshiisyo kala galaya ballama galayo ruux ballantii iyo ammaanada ilaalinayana laga heli maayo ilaa laga yiraahdo ree hebel waxaa ku jira nin aamin ah ree hebel nin aamin ah ku jira maanta awdaacda haddaad si fiican uga warhayso ama awdaacda xoolaha iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ha noqoto ama ammaanaadka iyo guryaha ha noqoto ama siyaasadda iyo jagooyinka ha noqoto meelay ammaana ku ilaashan tahay ma jiro bal iskaba dhaafay ninkii aad mujtamaca kala baxday oo diintiisa iyo wadaadnimadiisa iyo iltizaamkiisa aad la baxdood ka dooratay kiibaa balaaya kaaga imaanaysaa kiibaaba balaaya kaaga imaanaysaa mushkilada jirta marka waxa weeye ammaanadii baa luntay maanta hebel baa amiinana waa farku fiiq waay xaaladaasi uu nabigu sii sheegay maantana jirta kana sii dari doonta waxa iyaduna ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhowdahay oo astaamaheeda ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya cilmiga shareecada oo dadka garanaya yaraadaan dadkii baran lahaana ay ka tagaan oo ka zaahidaan sidaana cilmigii shareecadu ku yaraado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay min ashraat as-saa'ati an yurfa'a al-'ilmu wa yathbuta al-jahl bi nabi sallallahu alayhi wasallam saacada qiyaamada waxa kamid ah calaamooyinkeeda in uu cilmigu yaraado ama cilmiga wala qaado waa cilmiga shareecada jahliguna sugnaado faafo wax aqoon shareeco leba oo diintiiba garanayaba maba jiraba ama waaba yar yahay ilaa waxay gaadhayaan sida lagu qaadayo cilmiga ummadda looga qaadayo waa cilmiga shareecada uu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas fi sahih al-Bukhari nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam cilmiga dadka looga qaadi maayo in qulubtooda laga masaxo oo ruuxii caalimka intuu seexdo bari isagoo jaahila soo toosi maayo laakiin cilmiga waxa loo qaadayaa biqabd al-ulama culimadiiba yaa la dilayaa way dhimanayaan way leeanayaan dadkii diinta yaqaanay cilmiga yaqaanayna cid ka reebaysa ma jirto laana da'yarti iyo dadkii cilmiga baran lahaa adduunyo lagu mashquulsan qaar ganacsi bay erayaan gaarna maada iyo adduunyo ay baranayaan cilmigii diintana waaba laga zaahidayba cidina kaba reebin culimadii taqaanina waa dhimatay hadday kuwaasi tagaan dadkii dad waxay diin weydiiyaan bay u baahan yihiin dad juhalaan waxba garanaynin ayay intay culimo moodaan bay marka diin u dooranayaan weydiinayaan kuwiina xishoon maayaan way iska hadlayaan way fatwoonayaan ayagiina lumeen dadkiina waa lumiyeen culimadii marka waa dhimatay keedii waaweynaa waa dhimatay kuwii yaryara waa ku daba jiraan wax cilumtii reebahayana ma jiro culimtii sharaacadu waxay iska noqotay shay aan loo qastino ninkii u qastana uusan meel badanba ka gaadhinba tii nabigu sheegay way salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa heer waxay gaadhi doontaa cilmiga iyo diintu siday u baaba'ayso
heer waxay gaadhaysaa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam yadrusu al-islaamu kama yadrusu washyu thawb islaamku waa duugoobaya sida marada xararkeeda lagu xarxarno ay u duugowdo kale ilaa dadka qaarkood ay gaadhaanba inayna garanaynin soon wuxuu yahay iyo salaadi waxay tahay iyo xaj wuxuu yahay iyo sadaqa waxay tahay wax ay ka warayaan faraa'idii waaweynaa ee diinta xataa kama warayaan kitaabka ilaah habeen baa lagu soo guurayn markaasaan waxba laga reebin dad baa soo hadhaya marka islaan duqo weyn oo da'ah iyo oday weyn oo isaguna da'ah baa soo hadhaya salaad ma yaqaanaan oo soon ma yaqaanaan oo sadaqa ma yaqaanaan inay sameeyaan iska wadhaafi xataa ma garanayaan laakiin waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah intaasaanu ayeeyooyinka awiyadana ka soo gaadhnay intaasay haystaan laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah salaad ma yaqaanaan soon ma yaqaanaan cibaado kale ma yaqaanaan halkaa kelimay ku midsan ku dhagan yihin xudayfa xadiidka warinaya nin ardaygiisa oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan sila la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi xudayfow dad aan salaadna aqoonin sakana aqoonin xajna aqoonin sadaqana aqoonin laa ilaaha ila allah keliya afka kale maxay u tari buuri maxay u tari waa ka jeesaday xudayfa waa ku soo celiyey waa isaga jeesaday waa ku soo celiyey markii saddexaad ba wuxuu ku yidhi tunjihi min annaari yaa sila buu ku yidhi silow laa ilaaha ila allah masale sahlan amoodine naartay ka badbaadin buu yidhi laa ilaaha ila allah ay awowye iyo aabba ka soo gaadheen ay ku dhaggan yihiin diinta inteedii kalena ayna kaba warhaynin intaasi naartay kaga badbaadayaan buu yidhi laa ilaaha ila allah naartay ka badbaadin buu yidhi ilaa heerkaasuu gaadhaya maxaa keenaya cilmigii shareecada laga fogaanayaa jahli baa camimaya ilaa heer dadku waxay gaadhayaan xataa faraa'idii waa arkaantii waaweyneed ee diinta inay jaahil ka noqdaan wa ficlan waa midda maanta in meelo badan ka jirto jahli mutbaq ah baa ka jira meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna waxoogaa saxwo ah baa jirta laakiin saxwadii kacday iyo baraarugii xooggii loo baahnaa aqoonta iyo barashada diinta in la saaro lama saarin waxoogaa keenna ugu rooni waa wadaadka waxoogaa dhowrka kitaab laqmaystay afaraydiisana tuuran kara laakiin aynan intaaba u dhaafsiisnayn waraaway muxuu ahaayey yacni aqoontii xeesha dheerayd ee cilmigii qur'aanka iyo cilmigii sunnada iyo fiqhigii iyo siyaasadii sharciga iyo aaway wixii maya intaasaa lagaga kaaftoomayaa marba hadduu xoogaagiisa tuuran karayo waa sheekh waaye laqab sheekh iyo muxuu ahay macallin iyo imaam iyo wabillahi tawfiiq warku intaasuu ku egyahay musiibo weyn waay ummaddu markay cilmiga shareecada ka jeesato barashada diinta ay ka tagto musiibo ka weyn oo ku dhacaysa ma jirto calaamaadka iyadana ka mid oo nabigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam calaamaadka waxaa ka mid ah in ay bataan dadka booliiska la yidhaahdo ee u kaalmeeya madaxda daalimiinta ah caawiya ee dadka u garaaca u tuma oo shaabuugga wata kuwaasi soo bixidooduna waa astaan cala inay qiyaamadii saacaddii soo dhowdaa ku tusay oo nabiga ka sugantahay sal alla alay wasalam yakunu fi hadihi اlummati fi aakhiri الzamaan rijaalun aakhiru zamaanka waxaa imaan doona qiyaamadu markay soo dhowdahay rag shaabuugyo wata jeedal bay wataan kaannaha adnaabu اlbaqar lo-da saynteedoo kale ah dadkay ku garaacaan yaqduuna fii sakhat اllah wayaruuxuuna fii qadabihi bu nabi sal lla alay slam subaxdiina ilaahay cadhadiisay ku kallahaan galabtiina ilaahay cadhadiisay la soo carraabaan adiga booliis haddaad maqasho waa meelay balaaya taallo waay khaasatan dawladda iyo nidaamka meesha ka dhisane hadduu daalim yahay oo cadaaladii aynan jirin waxa aad wax u garaacayseed wax u tumayso waa nidaamkaa daalimkaa waay kuwa nebigu tilmaamay sal lla alay waslam kuwa noocaas ayaga keliya ma aha andimada daalimada ah ee cadaaladda aan ku salaysnayn oo dhan wixii la shaqeeyo oo dhan oo wax u garaaca oo wax u tuma oo wax u xidhiidha kuwaa iyagaa waay yaqduuna fii sakhat illaah wayaruuxuuna biqadabihi dadka noocaasa badashadooda iyo soo bixidooduna astaan calaamaadka qiyaamada ka mid ah uu nabigu ku shegay sal lla alay slam waxaa ka mid ah zinada oo faafta oo badata zinadu ficlan way jirta waqtigii nabiga sal lla alay wasalam saxaabaa jirtay zina ay ka dhacday oo qaar la xaday
oo qaar la dilay zinadu marka way jirtay sideedaba mujtamac aan laga helaynin dad khaldamaya ma jiro laakiin waxaa laga hadlayaa markay intay xadda dhaafto bannaanka u soo baxdo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugan inuu yidhi ummadayda la yakuunanna fii ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaazif ummadayda waxaa laga heli doonaa dad xalaalaysta oo bannaysta baasha la yidhaahdo zinada xariirta qalabka la garaaco ee lagu ciyaaro sida muusiga iyo macnaha waxyaalaha la garaaco oo dhan dad xalaalaysta imaan doona ummadayda ka badan nabi sallallahu alayhi wasallam xadiid kale wuxuu ku leeyahay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ummadani dhammaan mayso ilaa uu ninku haweenayda intuu isu taago fayaftarishuha fi طariiq jidka intuu ku qabsado uu jidka dhexdiisa ku goglado meeshii baashu gaadhay baashii guryaha iyo laalaabka iyo lala geli jiray dariiqa dhexdiisuba ku goglanayaaba ilaa heerka ay gaadho ummadani dhammaan mayso nabi sallallahu alayhi wasallam طيب فيكون خيارهم يومئذ من يقول dadka maalinka jooga kooda ugu akhyaarsan ee ugu dadnimo badan waa midka dhahaya kaas haweenta ku qabsaday jidka dhexdiisa ayuu wuxuu ku leeyahay law waaraytaha waraa hada alhaa'id warheede warniya waxoogaa ma darbiga dhanka shishe kala marti ma hawrsinada iska daa ma way soo dhaaftay war guriga la aad ma aha hotelka la aad ma aha warniya bal waxoogaa jidka dhinaca lagala yara baxo halkan la yara tagwa dadka ninka ugu akhyaarsan ba maalinka sida dhihi doona nabi sallallahu alayhi wasallam soo saas ma tabtaw adigu bal Yurub iyo reer galbeed iyo reer bari iyo meelaha fasaadku u banaanka dhigtay balu fiirsa adiga saas weey jidadka iyo banaanada iyo dan laga male adiguna inaadun muxuu ahay waxoogaa iimaan qalbigaaga haduu ku jiro waxoogaa isdhuudhuub inaad ku marta mooyee xagta dhankan ula durug ma dhigi kartid maada dhigi kara dhanka ula durug xorriyadiisa waa meel kaga dhacday hay faragelini waay maxaa faragelinaade dadku waa xor waxay sameynayaan xor bay u yihiin tasarrufaadkooda xor bay u yihiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam taasi markay timaado qiyaamadii suga qarkay saaranta way macna sidaas weeyaan xadiiskaas Abu Ya'la baa wariyay isaguna waa xadiis sugan waxa kamid ah zinada faafideeda waxa iyadana uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ribada faafideeda iyo xaaraanta cunideeda ayaa iyaduna aad u faafi doonta bayna yaday saacati yadharu riba waxa ajiiba zinada ummadayda qaar baa banaysan doona nabi sallallahu alayhi wasallam maanta adduunku meeshuu marayo nidaam ahaan haddaad tiraahdo zinadu waa xaraam wadamada qaarkood agtooda dambi bay ka tahayba inaad tiraahdo waa xaraam waxaan xusuustaa maalin dhaweyd oo muxuu ahaayay Yurub Turkiga ay wada hadal u socdeen oo Turkigu inuu ku soo biiro uu isku dayay Yurubna ay hangool isaga hayso waxoogaa iska celinaysa shuruudihii lala galay waxa kamid ahaa Turkiga haddaad doonaysaan inaad lagu soo biirtaan qawaaniinka idin yaala waa inaad wax badan ka bedeshaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah zinadu waa jariimo badala lay intay nidaamkiina iyo dastuurkiina ay ku jirto zinadu waa dambi laguma soo biiri kartaan Turkiga maalinkii baa laga saaray nidaamkiisa oo zinadu waa dambi waa laga saaray si ay Yurub ugu soo biiraan ilaa haddana ma hayaan sooma allana waa ka fogaadeen Yurubna waa ka fogaadeen ma hayaan ilaa heerkaas ay gaarsiisantahay xataa zinadu waa xaraam waana xun tahay waa akhlaaq darro waa fuxshi inaad tiraahdaa waaba jariimaba iska badhaaf muxuu ahaayay wax kale inaad ka bahadashay samaynteedii warkeeda iska badaa inaaba tiraahdo waa khalad baa dambi ah caalamku meeshaasuu maanta maraya nabigu sallallahu alayhi wasallam miduu tilmaamayana taa iyadaa way waxyaalahaas imaan doona ayuu ka sii warramay ribadaa ka mid ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam markii qiyaamadu soo dhowdahay ribadaa faafi doonta zaman waxaa imaan doona nabigu sallallahu alayhi wasallam uusan ruuxu u aabayeeli jirin xoolaha meeshuu ka helo meel alla meeshay wax ka soo galaan buu iska qaadanaa laakiin isweydiin maayo ma xalaal baa mise waa xaraam ما حلال ما هو حرام حلاشة waxay yiraahdaan al halaalu ma halla fi yadika
والحرام ما حرمت منه حلال وحل إلى ذا وحي قعنت هذا صوق له حرامنا وحل إلى ذا وحن إلهي بكو قريب وماشي صومالي كتير هذا وحن كعنين بوالله عنا وحن كعنين بوالله عنا يعني وح الله واحد هيلي كرتو أديك قعنت مري أو عكت مري أو أروري أو هو أبي يلي marka waxa weeyaan yaani inay sidaas heer ka gaadho oo dadku ayna u aabayeelin waxay qaadanayaan iyo waxay cunayaan iyo qaabkay wax u kasbanayaan iyo dariiqay wax ku helayaan waa astaan iyo calaamad kamid ah calaamaadka qiyaamadu inay soo dhawaatay oo nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxaad ku garan kartaan ribada waxa nabiga ka soo sallallahu alayhi wasallam inuu yiri xilli waxa iimaan doona ribadu intay faafto dadku ay laba mid noqonayaan ruux ribadii si toos oo badheera u cunay iyo ruux ribadii ay busteedii iyo qiiqeedu soo gaadhay labada mid waa laakiin ruux ka nabad galayaa iska yar waxaad ku garan kartaan maanta dhaqaalaha adduunka muxuu ahay ra'samaaliga ama hanti wadaaga la yiraahdo hadii hanti goosadka la yiraahdo reer galbeed ka soo jeeday asaaskiisu waxay waa ribo bunuugtoodii iyo muassasaadkooda asaaskoodu waa ribo caalamkii kalena ayagu la tacaamulahayo iyagaas wax u dajinay marka haddaad bangi la mucaamalato haddaad credit card ku mucaamalato haddaad suuqa ka mucaamalato yaa ima inaad ribad iyo cad cunto haddaad diin lahayn haddaad waxoogaa is ilaalinaysana kolley wuxuun ku soo gaar si aad uga badbaado ma fududa taa way mid nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaam alayhi ribadu sida ay u faafayso waana calaamaadka qiyaamadu inay dhowdahay ku tusay waxa kamida sidaan horeyba u soo sheegnay xadiiska nabiguna ay tilmaamayso calaamaadka waxa kamida qalabkan lagu ciyaaray muusiga iyo heesaha iyo kuwa heesa inay iyaguna bataan oo faafaan waliba la banaysto oo la xalaalaysto oo la yiraahdo xidigi iyo xidigti iyo kan iyo najmigi sida loo amaanayo ruuxan qiimo lahayn akhlaaq lahayn diin lahayn wa amaanay wixiisuna waa amaanay waa la xalaashan calaamad ka iimaan doonay kamid tahay nabi sallallahu alayhi wasallam markay yimaadaan astaan waa adduunka inuu fasaado iyo qiyaamada ay dhowdahay ayuu nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam waxa kamida khamrada cabitaankeeda iyo waxyaalaha maandooriyaha oo magacyo kala gagadisan loo sameeyay oo isticmaalkooda iyagana uu bato khamradii biyaha ahayd oo la cabo caleen la daaqo ilan qaadku waa khamre annaga qaad baan ula baxnay laakiin magaciisa saxda waa khamro ninka qaadka cunaya ninka khamrada cabo waa isku mid ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada cabay waa isku mid wax farqi u dhaxay ma jiro midka daroogada qaata ee kiniiniga ruuga iyo midka irbada qaata isku dura iyo midka caleenta ruuga iyo midka biyaha cabay kulli khamray wada cabeen لأن شريعة الخمر ما يتقانا شريعة الخمر ما يتقانا كل ما خامر العقل فهو خمر عقلك بني آدم ك يجرشدي سويحي وحياله أردن وخمره سيدو دوني هذا كوي بعد أما حين هلا قاتو أما أفكه هلا قاتو أما هلا الروبة أما هلا عبد تنمله تاس مهمة وين مسيحها مركز خمرة إيو مقعية كلا قد السنين لقوا عبد لقوا استعماله أيضا واحد كم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على موين كي كم واحد كم ذا إن ضدك إسلام تودي دلكوا بتو وضدك حتى عقوش لقى قاضو ومسلمين تو إسبابيان صار هريم أوصل شيء وحكم ذا إلى أهير وقال روح واحد لو دلنا وسنجرني كدلنا يرو وسنجرني وح ودلاه والمال والبعض فيرس مال والبا واحد إسلام يا مسلمين تي واحد يقول ده حلاش هذا ومسلمين تي الصومالي مثل إسكدش والمسلمين كانوا كهذي لباتن كي سنة تكتي إمسان آخر ودرني يا ضدك الله ينزل وضدك هاجي وأهل كاجي وولا لها وضدك تكن هاي وضدك أهل الدين كا ضدك الله ينزل كديله ينا ما قرنا يوح حدله يو كل الدين ينا ما قرنا يوح لود له لكن لسبابه صحابة واحد رسول الله يوم كان صائي صبا بينا إنه عقلي كان نجي ميو شوجا مركا ما ضد قرشة ضد شوجا نونه النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما يا زمن كإسجع ضدك عقوشي بالجسي يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم عقول مجرد وهذا عقل يشيله ما إيه الكاجات بابي الله عقلي مجرد عقوشها لقى قاضية markaasa waxay noqonayaan sida xoolaha kale bahaa'im is-eriyanayso kale ayay noqonayaan waxa kamida calaamaadkaasi bakhaylnimada iyo lex jeclada oo siyaada iyo adduunyada loo gacan geliyo ninba ninku ka xunya
adduunyadii kursigeedii iyo xoolaheedii iyo jaaheedii waxaa gacanta uu galayaa ninba ninku ka dadnimo xun yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahaya min ashraati saaca an yadhara shuhu يعني بين ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني وحويان علاماتك قيامة كمتة وفعلا وصح لحج على ضوء بدتها هي الدنيا دي ونين حنون قعنت وقش أخيارتي بالله إلى لي وحكم ذا كنعسجو فافا كنعسجا أو بطئ سجنا فافا إلى أنك يحس كيسو أي كنعسجا إسلام جلال إلى أنك يحس كيسو أي كنعسجا يسوق تجار حديث ابن مسعود بقى معناها قدوسي أحمد حاكم صارين والنبي صلى الله عليه وسلم ساعدنا وحير وحكه الرية إن أي جنعسجو وفافه حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة إلى أي هوين تنين كذا كلقي بقادته جنعسجا معناها سيادة سوميان معناها سوى ظاهر وهي بل هذا ما دان هذا السوقية يمكن ما بدناه لكن ماشي السوقية الصومالي دو بديه هنا نيروبي هذا تماذا سوق الدمرك يرجع الدمرك أبغى كبدن به دم بماها عيبنا معها لكن وعلامات مركز صوب هذا كنت صيصة إن القيامة دي صار نوده لأن علامات كقيامة أن ترينا إنه قارنوا وحياله حرامة قارنوا وحياله أن حرام أهين أو إسكبنان لكن بدنيا ترى كلا كم كده أرنتاسي وأرن يدنا ملاحظة خاصة هذا المجتمع الصومالي كمركز فيرسو شقة كلته بدنوا هذا الله هاي مجرد معظم كودو جناعسي بيجلين جناعسي بيليه أدون كي كلته إسكبنا فوركيس جناعسي جاز يبدأ الشديسة أيضا وعلامة كم إذا علاماتك ساعدوا للسوداد وحكم إذا والنبي صلى الله عليه وسلم للجرير كأوبتا كثرة الزلازل للجرير كأدونك كوبتا تقريبا مركز هذا أدونك في رسان بالآن للجرير أدونك كده عين المجرد هكذا فضول هذا لكن إحصائياتك بالولبا عندنا لو وقعوا للجرير دعين هالمرة ودعيا واجي هراء ويرانشري لكن وسوسيان سيادة ده الجرير كو سيادة يو وحي كتصيسا أدون كإنه خراب الربو حالتي سيسبدل باكو سعود وحكم إذا ضدك وناكسن إنه يتجا أو ضدك أنتي سحما صهران الصالحين تبى تجيا أخيار تبى تجيا علماء تبى تجيا أهل الدين تبى تجيا ضدك حما بصهرية أيجينا قيامة كدول لحد وانتاسيد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا ارتفاع الأسافل ضدك هو سيء oo nolosha dadka hoose aha oo xuma oo diin darrada iyo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada laha ayaa soo saramaray kuwii fiicnaa hoos maray ayaga madax ayaga talinay ayaga dhaqaalaha haysta dadkii akhyaarta ahaana hoostooda ay ku nool yihiin waka nabiga sallallahu alayhi wasallam innaha sayati ala an-nasi sanawatun khada'at sanado waxa dadka ku imaan doono khadiicid iyo khiyaano badan yusaddaqu fiha al-kadhib ninki beenalaha aha warkiisi waa la rumaysan wayukadabu fiha as-sadiq ninki runta sheegayna waxba laga qaadan maayo wayu'tamanu fiha al-kha'in kha'inka warkiisi waa la aamini wayukhawwanu fiha al-amin ruuxi aaminka ahana kha'inima lagu xukumi maqaayistii oo dhan baa markay isrogto isbadashay wayantiqu fiha ar-ruwaybid nabi sallallahu alayhi wasallam dadka xunxunna way hadli dadka xunxun markaas waxay yiraahdeen ruwaybidadu maxay tahay rasuulilaahi wuxuu yiri as-safih يتكلم في أمر العامة روح أوليتا أو أرمها عام كمسلمين تكهليا أرمها عام كا والسياسي ما نهيب ليه وحبو تحليلنا يا مصالح وين بكهليا ضنو كهليا دولة بكهليا أمة بكهليا مصير كذو كهليا مركز أوفير ستنا وحدي وركن كان فيه سمود ضيعيها بفلي وركن محوكان لسه قبل فيه صديعان غير كيسي بعد ضيعان ilmihiisii baa dayacan isagii baa dayacan markaasuu wuxuu ka hadlayaa arrimo caam diin xumo akhlaaq xumo dadnimo xumo kuwa noocaas oo kala markay soo saramaraan oo ay madaxa fadhiistaan dadka akhyaartiisiina hoos maraan qiyaamadii baa soo dhow wala adduunka u fiirsa adiga yaa ka taliyo jooga waa uu intii xumayd saas macna ninba ninku ka xumaa umba meesha saratay أخيارتي إيه دتكي كلنا وانين عرري أو وحن إيه فتن كان إيه بلايين لفيه سوق عرري إيه نين الإريي لا ولا بدوه
inta xun baa marka soo saramari inta xun baa ka hadli inta xun baa danaysa inta xun baa xukunta inta xukun baa muxuu ahaayey talisa inta wanaagsanna hoos bay marayaan calaamaadka qiyaamada ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waqtigaa dhammaaday salaadii maqribkaa joogta waan gabagabaynaya insha allahu tacala waxaa ka mid ah dumar uu nabigu sheegay sal lla alay wasalam oo soo bixi doona oo maryo qaba haddana qaqaawan wax maro u eg mara magaceed leh baa jidhkooda saaran laakiin cawradii ma astura ama maradaa khafiif oo jidhkeedii baa muuqdo hoosta gudaha ka muuqdo ama ma ahe maradii baa ku dheggan markaasaa jidhkeedii muuqdaa kor ka muuqdaa ama ma ahe maradii baan jidhka wada gaadhayn oo qayb ka mid ah bannaanka taalla wax maro magacle baa korkooda saaran waana qaawan yihiin kuwaasi markay soo baxaan calaamaadka qiyaamada ka mid tahay waana maanta sida wax u yaallaan waxaa ka mid ah beentoo badata iyo hubsiimada warkoo la iska hubiyo oo iyadana yaraata waxaa ka mid ah dumarka oo bato raggu yaraadaan tirada dumarka oo bata iyo tirada raggoo yaraata ilaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam ninku uu mas-uul ka noqdo halkii nin konton dumar uu mas-uul ka noqdo konton dumar wuu qabaa macnaheedu maaha laakiin konton buu mas-uul ka yahayoo qaar waa hooyooyinkii qaar waa habaryarihii qaar waa walaalihii qaar waa xaasas konton dumara baa ninkiiba mas-uulu ka noqonaya calashaani dumarkiibaa batay raggiina waa yaraadeen soo maanta sidaa uma jirto tirada dumarka adduunka iyo ragga marka laisu miisaamo intaasoo goor bay ku labanlaamaya waana sii siyaadayaan waana ta nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah geerida kadadaa oo badata sida kadadoo loo dhimanayo haa qalbigaa istaagay wadnahaa istaagay ruuxii oo seexday ma soo kicin diyaarad baa la dhacday hal mar buuba dhintay mawtulfaj'aha oo bata qiyaamada calaamaadkeeda kutus ay ka mid tahay waxaa ka mid a dagaalka uu nebigu sheegay sal lla alay wasalam oo muslimiinta iyo yahuuddu ay geli doonaan aakhiru zamaanka oo geeduhu ka qayb geli doonaan kaana muqadimaadkiisii iyo hordhiciisiibaa hadda muuqda xaaladan taagan oo muslimiinta iyo ka dhex taagan muxuu ahaayey reer bani israa'iil ama yahuudda dhex taagan ayaduna waxay hordhac u tahay taqriiban dagaalka uu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu sii sheegay kullu dalika iyo kuwo kaleetoo fara badan oo wakhtiguusan saamaxaynin waxay ka mid yihiin calaamooyinkuu nebigu sheegay sal lla alay waslam markaad aragtaan qiyaamadii waa soo dhowdahay oo qarkay saaran tahay waxaan kaga hadli doonnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala xalqadan midda ku xigta ama muxaadarada xigta waxaan kaga hadli doonnaa calaamaadkaasi waa wax la arki jiray oo laakiin siyaaday zina siyaaday ribo siyaaday xaaraan siyaaday dil siyaaday laakiin waa wax la arki jiray waa calaamaadka waaweyn een la arki jirin laakiin markay yimaadaan qiyaamadu ay dhacayso ayaan insha allahu tacala darsiga kale ka dhigi doonnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala hada billahi tawfiiq wsala allahuma wslam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem